xildhibaan Axmed Maxamed Diriye Nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaanku waxa uu ka hadlay wafdigii dhawaayay Soomaaliland ee ka socday dalka Eritrea waxaana xildhibaanku sheegay in dalka Eritrea iyo Soomaaliland ay midoobi doonaan waa sida uu xildhibaanku sheegay isagoo sidoo kale fariimo kala duwan u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale baabul goboleedka Puntland xildhibaanku maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa hadaladiisi ka mid ahaa xaaladda hore waxa weeyaan shalay wafdi baa noo yimi Eritrea gudoomiyaha baarlamaanku si fiican buu hadlay wixii jiray buu sheegay runtii buu u sheegay qolada in muqsina uu sheegay runtii waa dhageysanaysan taa waan ku hambalyeynaya nimankii Eritrea kan waxaan leenahay walaalayaal dad walaalaba nahay inkastoo dawladweynaha kala dhex yaalaan haddana waxaan dad walaalaa waxaan jeclay inaan midowno oo way noo hiiliyeen oo halkan aan la baxnay hil walaal halkii nooga hiilin lahay bay noo hiiliyeen waa kuwa maanta noo yimi waa ka meel bal soo maray waxaan leenahay inaan waxaan ku tala jirnaa hadii ay noo suuro geliso inaan iyaga la midowno la walaal noqono aan isku dhinac noqono qolan jeegaanta la baxday muqshan waxaan leenahay wataan waynika helay waxa doonaysayna Djibouti waynika helay koonfur waynika ka helay annagu waxa la midoobayna oo walaalkaya waxa la midoobayna walaalka Eritrea Soomaaliyeedna waa tii la dhaafay gudoomiye waa kii shalay u sheegay markay shanta afarta kale midoobaan taasanaad baan nahay annagu taasanaad aan noqonayno yeelimayno mideeya annaka Soomaaliya ma jirto marka waxaan leeyahay wanakii shalay baarlamaanka ka hadlaynay ee la lahay qoladan in xaaladda wadanka geeska ka hadlaynay waxaan leenahay ninkan walaalnimada doonaya ee Soomaaliya iyo Soomaaliland doonaya waxba kama qabno laakiin sad u walaalaysay Eritrea iyo Ethiopia noo walaalayo laba dawladood oo ayaan noqonayna isku mid oo isku soo booliyooba laakiin sanay marka tay yeelimayno berberana ninka berberow doon lawna indhahaaga qorful ku shidaan leen marka taas waa ta kale waxaan leeyahay in shalay wanakii ka wada hadalay arintan dantan geeska Afrika waxba kama qabno wanakii soo goynay inaan geeska Afrika wuxuu baahay dad midaysan buu baahay laakiin one condition man ku xidhnay in condition kaas aanu annagu la midowno oo horta anka dawladnimadeedaan qaadano markaan qaadano aan midnimada Afrika soo galo qoladan aan jaarkana Maxamuud Saleebaan waxaan leeyahay Maxamuud Saleebaano maleeshiyaadkiina siin kar weydeen in gunadii iyo salariga siin kar mashaariic siin kar weydeen ku filaada annagu waxaan nahay dad baan nahay dawladda baan nahay caalam baan leenahay madaxweyne aan leenahay dhaqaalaan leenahay wana kamaanta geeska Afrika waa taala yaabay lacagta shaaric iska taala marka waxaan leenahay Maxamuud Saleebaanka maleeshiyada waxaan leenahay maleeshiyada Maxamuud Saleebaan isku filaada boosaasa ma xukuntaan ninkii horena ciidankiisii qaaday kan kale imika fuulay Cismaan Maxamuudna waa ka ciidan waayay oo ciidan ma hayaan marka ayaga intaasaan kaga baxay مرعالي الدعالة عمر شباش تلفزيون كعالمي جاي بلوشة مقالة حرقيسة